السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وان إن ودا السلامي سومالي وين ميل كستو دونيس دحلدا كجوجتان walaalyaal waa walaalkiin ciise shukri cali. waxaan rabaa inaan in la wadaago war ka soo yeeray whatsapp. wuxuu sameynayaa mar dhow update kaasoo ah in uu nambarkaada iyo isku xiri doona facebook, macluumaadkooda dhan uu la wadaagayo la share gareynayo facebook. marka whatsapp iyo facebook hadda waxa ka wada dhaxeyn doona wixii hadda ka dambeeyo wada shaqeyn, waa sidii ayagoo wada shaqeyn ba ka wada dhaxeynayso. marka walaalayaal arinta waxay dadka dhibaato ugu keenaysaa in informationkaada oo dhan lala wadaagayo facebookna kadib si soo maarteen waxyaabaha faaniska oo kala ah inuu qofka page-kiisa soo saaro qof aadanba adiga aqoonin adooba facebook ku jirna waxa laga yaabaa qof ku yaqaano kale oo nambarkaada haya inuu u soo saaro macluumaadkaada oo meesha aad ka arko qofkii. marka arinta waxaad kaga hortagi karaysaa walaalayaal sidaan soo socota waan idin tusayaa qaabkan ana hadda aan idin tusi doono tixraac. marka kadib waxaad ka badbaadaysaa in macluumaadkaada ama telephone numberkaada iyo whatsapp iyo facebook ay isla wadaagaan oo ma aragta uu whatsapp oo kaliya ku ekaado. waxaadna arintaa si aad uga hortagtid aad ku haysataa muddo dhan 30 maalmood oo ku eg September 30keeda. wixii ka dambeeyay ma bedeli karaysid oo waxa waaye nambarkaada iyo waxa la isku xirayaa iyo facebooka. marka walaalayaal arinta waa inaad ka digtoonataan, waayo ma jiro qof raba in maaragta ama sawiradiisa ama videoyaashiisa ama codkiisa ama nambarkiisa facebook la dhaxdhiga qof doonayo ma jiro. sidaa darteed walaal waxaad kaga hortagi karaysaan siyaabahan hadda soo socdo oon sameyn doona. shaashada igala socdo insha Allah. waxaad tagaysaa meesha hadda aan daaraya dhagan siiyey ee kora. kadib waxa kuu soo baxaya saddexdan eray oo meesha ku qoran waa refresh, status iyo setting anaga u baahanahay setting da ku sii. marka setting ku dhifatid kadib wuxuu kuu soo saaraya macluumaad badan. macluumaadka waxa ugu horeeya oo kuu soo saaraya meesha furaha ku sawiran yahay ee account ay ku qoranta. accountiga ayaa dhagseynaysaa. kadib wuxuu kuu soo saaraya shaashad kale. shaashadan kale marka meesha ugu hooseysa qoraalka ugu hooseeya waxa waaye meel waxa jirta calaamada saxda ah, calaamad saa u saxan ay saaran tahay ee cagaarka ah. meesha ayada waxa ku qoran share my account info. wuxuu leeyahay macluumaadkayga la wadaag. yaa la wadaagayo marka meesha ka soo hooseysa hadii si akhriso waad arkaysaa wuxuu ku leeyahay with facebook to improve my facebook ads. marka wuxuu leeyahay macluumaadkayga la wadaag facebook. qof doonaya marka ma jiro inuu facebook macluumaadkiisa la wadaago. marka walaal si aad arinta ugu hortagto waxaad sameysaa calaamada ka qaado kaliya dhag kasi. marka ka qaado qoraalkan uu soo saaraya. qoraalkan markuu ku soo saaro meesha ugu hooseysa ee ku qoran tahay cancel iyo don't share ku dhufo dhagsi. خلاص accountigaada hadda saa ku xiran yahay. facebookna ma arkayo nambarkaada, sawirro kuwaadana ma galayaan, security buu ku yahay wixii hadda ka dambeeya. saa ula socda insha Allah. waa jid aad iyo aad u fudud. saana hal iskaga xira hadduu ilaahay roon yahay. waa walaalkiin ciise shukri cali. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.